بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الشرف تلا مالك سجوتين وعن السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Soomaaliweyn dad badan aan commenti ugu soo weydii Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dad badan oo commenti ugu soo weydii guryaha Kampala noo sharax qaabkii loo kireeyo qaabkay guryaasha u kala yihiin guryaasha horta qaabkooda way badan yihiin guri waxaa jira qol iyo barsi ah guri waxaa jira guriyaan oo kale inta u jeedin oo dhinac saaran hadda guriyaas oo kale inta waa soo duubay waxaa la kireeyaa wuxuu ka bilaabaa waa aragteen qaabkiisa waa laba qol iyo fadhigiisa waaye kushiinkiisa wataa laba masqul oo leeyahay hal balkoon oo leeyahay korontadiisa iyo biyihiisa wax dhan isku qabo waxa waaye $350 wax dhan isku jir waa waxaan ku xiran tahay xaafadaha guryaha hadda la kireenay u jeedid waxay ku xiran tahay xaafadaha dad badan ay iga soo dalbay xaafad kiisa jirto kabuusa jirto kasaanka jirto marka waa badin katweeya jirto marka xaafadahan lama soo kooba karo Soomaalida waxay u badiyeen xaafadahaas oo kale inta u badiyeen xaafada ugu soo dhawaa Kisii xaafada Kisii laakiin guryaasheeda waa qaali maxaa yeelay Simbiri xaafadaas ay u kala dhabiin waa Kisii oo kale inta waxa lagu leeyahay Soomaalida u badan haddana mid kale Soomaalida dhan way ka wada adeegtaan marka guriyaan u jeedid waa xaafada Kisii loo xisaabsan yahay laakiin guriyaan qofka oo kireeso sidoo kale inta laba qol iyo fadhiga ninka kireesti oo kale qol waa iska kiree kara qol wuxuu iska kireena lacagta markaas ku degan yahay qofka balance oo sameeyna waayo qolkaas oo kale inta qofkan dadka way kireestaa laakiin badi Soomaalida ma kireestaan Soomaalida badi maxaa yeelay qofka waa loo maqan bil ku filan oo haasa badi maxaa yeelay qofka kale inta soo dego waxa laga yaabaa inuu isku dhac imaado qof ilmo wato iyo qof kale inta ilmo wato badi misla degan laakiin dadkii iska helo oo saaxiibo ah oo kuwada balamo walaalo wax kasta isku dulqaan laakiin badi dadka waxay degsadaan single waayo single meesha bad ama gabar single degsay ama wiil single degsay waayo dumar Simbiri single ma degsata waayo Simbiri gabar kale intay degsata maxaa yeelay guri aday ninkeeda dadkeeda maqan yahay oo kale gabar iyo ilmaheeda wadato waxay degsay gabar kale single oo hal cunug wada ama waxba wadeen way buuxaan marka qofka ku xiran tahay sa ku heshiisiin guriisa ku degantahay magaalada qofka saas oo kale inta u kala baraha single kan badi waxay degaan guriyaashaas oo kale inta dadka degiin oo kale inta way degaan guriyaas single oo qolqolna waa jiraan bal waa tahay guriyaas saas u arag qaabkeeda u fahma Soomaalida dadka iga soo codsad walaalayaal guriyaan u jeedin waa laba qol iyo fadhi oo qaabkiisa oo kale inta si fiican u fiiriya barxad oo soo dhigta waa u jeeday jaranjarada sida waa u jeedan guryaha laba qol iyo fadhi waa kala xiriin fadhiga waa u jeedin bal waa kaaya wax kasta waxa loo baahan yahay inuu si fiican u sharaxay lacagtan way ku xirantaa meel ka raqiisan waa jirtaa meel ka qaalisan waa jirtaa meel waxaa jirta xataa oo $400-500 guri la kireena waayo dadka si ku xiran iyo si u kala badiyeen ku xirantaa waayo qof yar hadee tahay qol iyo barsiga badan ka kasta qofna waxaa kireystaa laba qol iyo waxa qol iska kireynaysa waayo wixii faa'iido ku jira waa bal anagna wax kasta waan soo duwayna guriyan waan soo doobnay ininka naga soo codsaday anaga Simbiri taageerayaasha waxay naga soo codsadaan anaga diyaar u nahay inuu u sameeyno u haweeno Simbiri anaga ininka ni shaqeyna maxaa yeelay dad Soomaaliyeed tiin oo isku baahanaa nahay anagna inuu video waaso kalanta inuu noo sii share gareysaan oo subscribe noo saartaan asxaabta kale ka saartaan aad ugu baahanna marka groupaha kalanta dhiga sida meelaha kalanta oo la isku oo sheekada oo kalanta ala dhax dhigo warasa ata saaxiibtaas ku dhig ninkan sidoo kalenta u dhigay gabadha sidoo kalenta bal ininkan horumarka inkaan gaarsiin kara anagna hamigeen insha Allah marna maka quusanayna waa gaareyna insha Allah ilaahay garabkeena taagan ininka garabkeena taagan bal insha Allah walaalayaal soo dhawaada subscribe noo saara noo la gareeya asxaabta sharafta leh anagna dad wanaagsan oo ilaakum wax kasta baahida qabtiin inuu naga aqoontirna anaga diyaar u ah anagna waxaan u baahanaa wanaagiin oo kale in horumarna gaarsiisan Soomaali intaas oo kuna ku jirto YouTube-ka subscribe waa maka dhibaayo qof walaalkan horumar uu ku gaara ininkan wanaageen oo taa anagna waxaan u baahanaa waxyaalo tayo leh oo ininka Simbiri aan ku qanacdeen inuu nisoo doobno meelaha oo fiican oo kale wixii markaas oo jiro kaleente waxyaalaha jeceshiin waa ogna marka insha Allah anagna waa diyaar u nahay waxaas iyo wax ka badan inuu sameeyno bal insha Allah ininka wax kasta adduunka waa taako garabkeena Simbiri istaaga anagna diyaar u nahay insha Allah horumarkeena iyo hamigeena markale ma kan jabeeni waana sii wadayna insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta sharafta aad u wanaagsantiin